Soomaaliya ayaa u yeertay danjiraha Kenya u fadhiya Soomaaliya si ay ugu dhiibto warqad cabasho ah oo ku aadan qoraal la qoonsan karo oo dhawaantan uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Kenya. barta Twitter-ka ee wasiirka arrimaha dibadda Kenya ayaa 27kii Juun la soo dhigay sawir muujinaya sargaal sare oo Kenyan ah oo kulan la qaadanaya wasiir ka socda Jamhuuriyadda iskeeda isku magacaawday ee Somaliland. qoraalka Twitter-ka la soo dhigay ayaa Somaliland u tixraacay dal madax banaan. Somaliland ayaa sheegatay in ay ka madax banaan tahay Soomaaliya inteeda kale 1991kii hase ahaatee weli ma aanay helin aqoonsi caalami ah. war-saxaafadeed Isniintii soo baxaya dowladda Soomaaliya waxay ku sheegtay in qoraalkaasi la soo dhigay barta Twitter-ka ay u aragto mid meel ka dhac ku ah qarannimada Soomaaliya. sanadahan dambe ayaa Soomaaliya iyo Kenya waxa u dhaxeeyay muran dhanka sohdinta badda ah taasoo aakhirkii sababtay in dacwadii loo gudbiyo maxkamadda cadaaladda adduunka oo loo madansan yahay bisha September ee soo socota.